wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse ayaa gaadhay deegaanka Caariyaan ee koonfurta degmada Caarigabo waxaana deegaankaasi muddo 4 sano ka jiray colaado sokeeye madaxda maamulka gobolka kuwa degmada Caarigabo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland ayaa soo afjaray colaadda labada beelood u dhaxaysay waftiga barasaabka iyo wayeelka labada beelood oo ugu horeynba deegaankaasi gaadhay waxa ay ka qayb galeen harimo sharafeed ballaaran oo lagu furayay magaalada Caariyaan oo muddo ay ku kala maqnaayeen bulshada deegaankaasi waxaana ugu horeynba munaasabadii lagu qabtay magaaladaasi ka hadlay duqa magaalada Caarigabo Ismaaciil Xaaji Nuur mas'uuliyiin wayeelka labada beelood ilaahay baa qadaray in halkan lagu wada noolaado waxaan leeyahay khalad waa dhacaya laakiin khaladka wanaag markuu ka dambeeyo خير بدن ما يلا إلهي وحين ويدينا ندي بدحين وخلدات بيننا كسر نقول بل إلهي ويدي سنين وحنا إذا كدر دارنا نبضع عاد قادتين إن هروسي ودان كالجعل كسيب بديسان ولا التنمى السيب بديسان إن هالك شوك تعدي مشي سامحنا ومقالة عينه نبي علاط وكذا حدا عينه ولا النمو يطفرن يا قلبي فيو عينه اسكت حق الله واسكت حفظنا هاي شو كل خصوصي لو كده يادي العيد rixin baa la isu yahay islaani baa la isu yahay xidid iyo xigaal baa la yahay qof walba wax dugaatay in laga xisaabtamayo dadkii nooca ahaa saaka markii la yiri arintii Caariyaan baa la soo afjaraya si aan u farxay Ilaahay u boogaa shaqo kasto noo taalay iyo hawl kasto noo taalay halkeedii baan kaga nim si aan madasha khayrka aan uga qayb galo maalin badii hadal baa jooga maanta nabadii baan xambaarsanay ilaahayna nagu soo alhaamayay waa gudoomateen annuna ma inaan ku nahay warnin baa la ka dhigay fikir waxaan bacrooshidan wax ka saaro nabad baan qaatay ummadina waa u sheegay waana ku faa'iiday reer jaamac maanta waa dhowr iyo 20 rag badan baa intay dhashay badan bal xuquuqaal uga ah xagga dawladda iyo xagga shacabka mid walba xuquuqaal baan ka ah Caariyaan ayay noqonin gobol labaad ilaashada hooy waxa jirtay hees la qaaday jiloodan jirtay nabadda naas la luugale nabaddu inaga u baahan iyada in looma baahna marka nabadda waa in la xijistaa anigoo ku hadlaya afka hay'adaha gobolka ka howlgala Caariyaan insha Allah bismillaahi kariin nabadgelyadu way xirmaysaa halkii aanu ka wadnay waanu laban laabayna ummad kasta waxaan u sheegaynaa Caariyaan heshiiyay inuu heshiiyay Caariyaan baanu sheegaynaa inuu wada fadhiyaa baanu sheegaynaa ilaahay hadduu nagu taageero inaanu sii wadayno nabadgelyadaanu u sheegaynaa waa la soo xilay waa la soo ganaaxay waa la isaga yimi waxa oo dhan markii ay soo socotay maanta waxaan taagnay alla barigeedii ilaahay waxa ka baryaynaa alla barigeeda inuu ilaadkayo maamul gobol iyo guurti iyo guddi nabadgelyo maalinba istebay maraysay maantay gabagabadii soo gaadhay horta taa in ilaahay adkayo ayaynu ku ducaynaynaa waxaan cod dheer ku leeyahay oo aan kala dardaarmayaa xukunkii halka ka dhacay gobolka lagu riday gudihiisa guurtigaas ilaahay u soo diray fulintiisii idinkeedu ku xidhan ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo xiray barasaabka gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse waxaana wayeelka iyo bulshada deegaanadaasi uu faray in ay ilaaliyaan nabadda deegaanka Caariyaan ka isuboholiyay idinka nabadda qaatay sida halkan oday Saalax oo ka sheegay anagu waanu idin hogaaminaynaa laakiin wax idinka yimi bay ahayd ilaahayna wax idin soo dhaxmariyay number 1 mahadeeda waxa la golaha guurtida iyo waayeelka guud ahaan gobolka Sanaag oo u horeeyo maayarka degmada Ismaaciil Xaaji Nuur dhammaan si guud baan idinku wada mahadnaqayaa wasaligi booliiska Caariyaan Allah inoo Cabdiraxmaan Cadaani telefishinka Horyaal magaalada Caarigabo